بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله بإذن الله الكريم. ولا ليال هرتا مرك هراء ميل كستو تشوكتان وقت كستو كسوجنتيهين وارن السلام يا وولالكين إبراهيم وبرنامج كين نبضي نول لما أنت وأنا تعالى هاي سدا يوسف عيسان سدا يرسو هذا شان سدا يحد رسان سدا يتعسين إن كبضن بولا تعالى. اللهم صل على محمد هذا هلك هيوجد بو عاوة عراي هيسا ورركا وانيد دشنيا ولا ليال waxa dhacay golaha baarlamaanka maalinba meel baa leeniga soo galaya golaha baarlamaanka ayaa ninka la yiraahdo Jawaari mooshin ka keenay waan idin sheegay war haduu Jawaari noo joogana waa ahlan wa sahlan hadii odayga weyn ay isku daaleen baarlamaanka oo uu hore noo wadi waayay dibna wadi waayay waa la eri karaa xildhibaanaduna mooshin way ka keeni karaan okay xildhibaanadii mooshinka waday tiradoodu way dhaaftay intii mooshin wax ka keeni lahayd waa saayid yani tiraday marayaan waa tiro madaxweyne lagu rido waa tiro ra'iisul wasaare lagu ridi karo 200 iyo something bay marayaan raggii ugu waaweynaa xildhibaanada ayaa hadlayay hortiina ka hadlayay oo social media ka daawanaysay okay inta waxaan kaga baxayaa dad baa dabeedna shaqo ka dhigtay qarannimadii Soomaaliya iyo walaal Soomaalinimadii ummadda Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa aniga khayre halkan gashan maayo Jawaarina nicmaayo labadu qabiilahan iyo dadnimo ahaan waxa weeye odaygaas aan hore u sii aqaan laakiin waxaan ka hadlayaa xaqa yaa gardaran maanta khayre muxuu wadaa bahalkii muxuu wadaa in mid labaad Jawaari inaan cadaalad ku hadlo ilaahayna wuu igu og yahay idinkuna waa igu taqaanaan dadka ibartay ee halka iga bartay social media inaan cadaalad ku hadlo ninka la Jawaari wuu erga tagay balu fiirsada wuxuu u tagay madaxweynaha wuxuu yiri inaan kana iga wada moosine ha iga joojiyo madaxweynuhu waa madaxweyne daacada oo nadiifa wuxuu ku yiri Jawaariyow hadii inaan kani mooshin ka wada ana u yeedhaya saddexdoodu way kulmeen waa xalay saddexdoodu way kulmeen dabeetana markay kulmeen madaxweynuhu wuu la hadlay wuxuu yiri haddaad Xasan Cali Khayre ka dambayso odaygan iska daa baarlamaankuna shaqadiisaasi wato isla markiiba automatically hadana adigu isbedelay waa oday dhaaranaya annaga hana oran muuga Abdi Ali hana oran beenaale annaga hana oran beenaale haddaad run sheegayso de telefoonada leedahay ka hadal laakiin halkan waxba noogu soo qori doqonto meelaan ka san ka tuuraya wallahi caaw marka waxaan idin sheegayaa markuu dhexdhexaadkii wuu ka baxay Jawaari wuxuu yiri 30 sanadood baan siyaasadda ku soo jiray 40 sanadood madaxweyne Maxamed Siyaad Barre la soo shaqeeyay hebel baan la soo shaqeeyay ma inaan yaroo sanad siyaasadda soo galay ayaa aniga wax iga qaadi karaa okay anigu kuma haysta buuli laakiin iska celi xildhibaanadana way ku muraarad dilaaceen intii hore uu soo horfadhiyay imku horfadhiyaa muraarad dilaac baa iyagana haysta marka Allahumma salli ala Muhammad kayse jaamac qaalib beenaale wallahi halka ka ooyaysan caaw bukaan socdo midharo dabeedna ninka lagu yiraahdo in Bushaare Khaliif Cali walaal aad baan ku salaamay ninka lagu yiraahdo in halkaasay sheeka fadhidaa okay ha fadhido waxaan idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inaga ka shacab ahaan maxaa inoo ballana waxa inoo ballana inagu ma niyad jabayno shaqo dawladnimana way noo socotaa madaxweynaheenu way noo shaqaynayaan ciidamadeena sharafta leh way noo shaqaynayaan wasiiradeenu way noo shaqaynayaan kaliya oday kursi laga qaadayo yaynaan ku mashquulin wuxuu yiri ninkii inagoo kabiira ah yaynaan kabaan jabay ku karaama seegine way noo laxaha kore iyo kaalintii guray inagu gabigeenuba social media sa loogiya ma laga keenay ma leeriye ma soo noqday inagu Soomaaliyay ma waxaynu ku mashquulaa odaygu hadduu socon waayay hore iyo dib u socon waayay Jawaari wali halka ceeb kama sheegin u leeyahay Xasan Cali Khayre
اللهم صل على محمد وإنا كايرا دلينيرada ah sanadkeen la jooga sida Obama iyo madaxweynayaasha caalamka inoo khudbadeeya runta inoo sheegay yiri hadaad horumar doonaysana bal xaasidka u jab hadaad horumar doonaysana buuli waa erayga aan ka qoray waxa la saaxiibtay buuli saaxiib la yiraahdo Farmaajo hadaad dib u dhac iyo qabyaalad doonaysana 27 sanadood la saaxiibaysa intaasaan ku qaatay ra'iisul wasaarahayga shaqadiisaan ku qaatay wasiir Beyle oo uu shaqadiisa u daayay baan ku qaatay waxaan ku qaatay afarta habeenimo ayuu saldhiga heliwaa iyo ciidamada laamiga taagan iyo ciyaalka wax la yiraahdo Muqdisho wax laga ciyaaraa taraqa ku ciyaara ayuu la joogay habeen bad halkaas uu lugaynaya muxuu noo qabtay Jawaari sanadkan waxay noo qabteen iyaga waanu aragnaaye ilaahay baanu ka yaabaynaa waxay noo qabteen toos baanu aragnaa ummadda Soomaaliyeed waanu sheegaynaa waxaan walaaliin sheegayaa oo aan rabaa halkan inaan ka sheego ninba aad loo dhageystaa waxa la yiraahdaa cali xaraare ayaa la yiraahdaa kaftanka siyaasaddu soo gala waa nin weyn oo la dhageysto bal erayadii uu ku hadlay ayaan rabaa idinma dhageysiinayo kulligiina waa dhageysateen laakiin qaabku u hadlay baan idin sheegayaa horta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku tilmaamay wuxuu anigu waxaan u bixiyay wuri mooge waa allah ha xafido ilaahay ha karaameey maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu ku yiri cali xaraare waa mooge cali xaraare ka hadhi maayo deyn maayo waayo ma qabyaaladiistaanay daahir calasow maxaan ku haystay madaxdan qaran ku haystay haddaan cali xaraare markaa iska daayo soo la odhan maayo kana malaa isku qabiil yihiin oo iska deynayaa cali xaraare waa dambiile haddaanu wallahi ka toobadkeen aanu ka noqonin oo aanu dib uga noqonin ilaahay baa igoog isaga laftiisa iyo taariikh nololeedkiisa ayaa halka ka sheekeynaya anigu waan aqaana Hargeysa ku dhashay Hargeysaan ku dhashay qabiil ahaan waa warsangeli ana warsangeli baan aad baan u aqaana wallahi runtaan u sheegaya wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha horta wuxuu ku tilmaamay wuxuu yiri oil gas buu ku jiray dalku iibin lahaa sababtu Jawaari imika mooshinka uga wado waxa kamida buu yiri maadaama dalka iibin lahaa oo Jawaarina dalka difaacay war bal idinka annaga hanoo soo qorin beenaale marka ninka lagu dhaca cali xaraare arrimahaas uu galay hagale uu ku raftay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo oo ilaahay baa igu cali xaraaro adiga ka daacadsan oo aniga iga daacadsan oo nabad iyo cid walba ka daacadsan ayuu halka uga soo tufaya waa tuug kuwa la jooga iyo kuwa Minnesota jooga iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa iyo kuwa xataa qabiil ahaan aniga igala soo jeeday isaga kala soo jeeday warsangeli waxaan digniin u dirayaa cali xaraare haddaanu ka noqonin isaga iyo taariikhdiisa iyo ayeeyadii iyo awowgii halkaasaan soo dhigaynaa annagu ummadda Soomaaliyeed rubaan idin sheegaya waxaanu habeen iyo maalin wallahi aan ilaaliya oo soo jeeda in madaxda qarankuna ii shaqayso anna aan social media ka ilaaliyo doqoni halka kuma qabsan karto madaxda qaranka maxaa bal farmaajo iyo khayre caydooda u soo galay cali xaraare anigu ma garan kara sababta waan isweydiiyey caadi khayru caayay allahumma salli farmaajo wuxuu ku sheegay mooge wuxuu waa mooge oo mooge maxaa la yiraahdaa wuxuu dalka waxa ka dhacaya wuxuu ku oranaya madaxweynuhu ma ogi waa kelmadaha ay mahad salaadiya soo qaataan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo haddii lacag lagu soo shubtay ama Jawaari kugu soo shubay ama mahad salaad kugu soo shubay ama Umar Cabdis kugu soo shubay aday ku taala laakiin caliyow badbaad gashay badaana adaa ka bixi doona عيدا مدحوينها يا عيدا رئيس الوزراء والله بان كدارته حتى هدي حلك وايان إن أنا كاجا هرين إلهي بان كدارته وما الصوماليين اللي جالسية في يوجا وحوي أنيجا أو إلهينا ورمحان داير على سومالي سكت دايو وما الصومالي شيدان وسويسي محان وده هذا تيم مركب إلى قبيل كأبا نكاد دينية على حرارة وتوب كوشا قيستا سوشيال ميديا الدعوة كوشا قيستا إن لا مربى وشقايا
waxay dadku jecel yihiin buu ka hadlaa waa munaafiq wa akbar munaafiq waxay dadku jecel yihiin buu ka hadlaa si loo dhageysto dabeetana imika wuxuu yidhi malaa haddaad caydo dayn maayo walaal dayn qof walba hay soo qorin daa wallahi waan ku tuuraya qofka hay soo qoro dayn maayo cali xaraare dembi buu galay dembi qaran buu galay allahumma salli ala wala isku xidhaa caalamka madaxda qaranka adoo caayay aan u sababayni wala ismu caarida yurubtan ra'iisul wasaaraha jarmalka waxba laga sheegi karaa laakiin waa la sababeeyaa laakiin inaad nacnac la soo fadhiisato maaha inaad nacnac la soo fadhiisato maaha sababee muxuu mooga ku noqday muxuu khayre tuu ku noqday khayre muxuu tuu ku noqday ma caddayn kartaa inuu khayre tuugiyo dalkan iibinayo intaasaan walaal isaga kaga baxaya waxaan idinku darayaa allahumma salli ala sayyidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wasallam meel kastoo Soomaaliyeed runtaan u sheegaya waxaan walaal idin sheegayaa magaalada Hargeysa nin baa ka soo baxay guri barwaaqo la yiraahdaa guri barwaaqo ayuu isagu la baxay anagu xanuun naqaanaa guri gubtay iyo guri habaar ninkaasi habla ciida galaabo caay marar badan baan idin sheegay qabiilka ciida gala la yiraahdo hablahoodu caay laakiin qaabku u caayay ayaan idinka sheekaynaya wuxuu u caayay wuxuu sayidkii waa sayid maxaa Cabdullah Xasan yaani qof qabri ku jira nin ka been abuurtay ka waran sayidkii baa wuxuu yiri buu yiri naagaha ciida gale way hunguri weeyhiin sidaan ay ahaayeen waa ka okay wuu cadeyn waayay niman qoraayaaba u tagay dadkii taariikhda diiwaanka sayidka waa la hayaa waa loo tagay cadee baa la yiri wuu cadeyn waayay ujeedada uu jeedayna halkan aan idinka cadeynayaa qabaa'ilkan waa la isku diraa qabaa'il wuxuu isku dirayaa in maadaama sayidku ogaadeen ka soo jeedo wuxuu isku dirayaa ogaadeeniya ciida gale waana dad ehelo wada dhashay Hargeysa ayaa la igala soo hadlayay aad baan uga mahad celinay dadka igala soo xidhiidhay way shireen ogaadeeniya ciida gale way soo yihiin way og yihiin inaanu sayidku hablaha ciida gale caayin taariikhdana ugu ma jirto dabeedna halkaasuu walaal hay soo qorin mar dambe cali xaraare iyo waxa ka bax cali xaraare miyaan haysti weligay anoo ka hadlay meel cali xaraare wuxuu galay madaxweynaha wuxuu bixiyay mooge ra'iisul wasaarahana wuxuu yiri waa nin tuugo some oil gas marka isaga bad isku galay isaga ayaa bad isku galay anigoo kaliyana ma aha duqbilow baa ka hadlaya waxa ka hadlaya Cabdisalaam Gentleman waxa ka hadlaya saasa loogu tumanaya wixii galiyay ha ka saaraan cali habeen walba umad Soomaaliyeed baa loo sheegay cali inuu tuug yahay waliba anigu taariikhdiisa hoose ayaan hayaa ana ku dul istaagay waliba marka hadduu ka noqdo apologies ka bixiyo cali ma haysano waxba kuma haysano lacag kuma lihin marka ninka la yiraahdo guri balaayo hablaha suucaay dhaqanka Soomaaliyeedna de wax walba Soomaalidu way suran jirtay laba shay ayaa dambiya laba shay baa dambiya meeytida oo sayid maxaa Cabdullah Xasan oo taariikhda Soomaaliya ku faanto maalin dhow walaalayaal wuxuu soo wadaa haddii guri barwaaqo ma hay guri dumay haddaanu iska badayn lahayn maalin dhow wuxuu soo wadaa Axmed Gurey oo ninkii futuuxul Xabash ahaa inuu yiraahdo isna taariikh ka qoro wuxuu soo wadaa inuu wiilwaal ka qoro wuxuu soo wadaa geesi xaawataaka inuu ka qoro laguma daayo qofka haddii taariikhda Soomaaliyeed ee haddii taariikhda Soomaaliyeed la khaldayo maaha in Ibrahim la qabsaday maaha in Cabdisalaam la qabsaday maaha in cid kale la qabsaday laakiin haddii ummadda Soomaaliyeed iyo taariikhdooda kaasi waa oil haddii taariikhda ummadda Soomaaliyeed la khaldayo ilaahay wuxuu xigmad noo siiyey oo awood noo siiyey annagoo halkaa idinla joognaa in aanan ka gaban hadduu walaalkay yahay hadduu adeerkay yahay hadduu inaadeerkay yahay hadduu qabiilkayga yahay nin walba oo Soomaalinimada iyo dawladnimada
in yar u dhima in yar meel kastuu joogo iyo magac kastuu sheegto fiqi baan dayn waaye mahad salaad baan dayn waaye marka muxuu cali xaraare muxuu noqonayaa ragga Umar Cabdirashiid baan dayn waaye oo lacag haysta oo bilaaye iska dhiga oo yiraahda inaan walbo hadla anaa la socda marka in kuwa daynmayno marka ina guri gubtay ina guri barwaaqa ma aha ina guri gubtay ceebtii ugu dareed buu sameeyay walaalayaal ummadda Soomaaliyeed meel walba ka dhageysanaysan videoga biliis share gareeya wuxuu sameeyay meyti laga been abuurto Soomaaliyeed meytida oo laga been abuurto Sayyid Maxamed Cabdullah Xasan wuu dhintay Allah yarhamur raahimiin wuu dhintay waanu ka been abuurtay buu ka qoray in aanan ka harin oo mar walba waan idinku soo celinaynaa mar walba ummadda Soomaaliyeed waan idinku soo celinayaa mar walba ina guri gubtay bal wuxuu ka sheekeeyay iyo been abuurka war hablaha ciida gale caydooda waaba sahaalo been abuurka ka waran meytida bal meytida laga been abuuranaya ka waran maalin dhow wuxuu soo wadaa ninkii futuux al-Habash ee dhulka bay noo qabtay Axmed Guri ayuu cay ka soo wadaa marka annagu ma waxaan iskanay Allah u naxariisto Allah yarhamur raahimiin dhamaantoodii annagu ma waxaan iskanay dad goob joogayaalo waan dhageysanaynaa maya ma dhageysanayno ummadda Soomaaliyeed ee na jecel ee na dhageysata halkaas aan uga sheegaynaa waxa weeye Allahumma salli ala Muhammad ninkii la guulan jiray ina ilay ma deynayo caawa ina bayna soo habeen dhaweyd waxaan ka hadlay barnaamij baan ka hadlayay barnaamijka aan ka hadlayna wuxuu ahaa ina ilay ayaa bal u fiirsada halkayga ina ilay baa inan wuxuu ku xiray reer buu ku xiray reer inan ma ahay reer buu ku xiray hebel baad like saartay oo aniga caayay like caawa waxa life ila soo hadlay inan ku nool ariga Mareykanka oo isna nin sheer gareeyo sheer hooyadii u xiran tahay bal idinku Soomaaliyay hadalka ila wadaaga Mareykan buu ku nool yahay muhiim ma aha inaan magaciisa sheego hooyadii maanta waxay u xiran tahay sheer garayn nin ina caayaya ayuu sheer gareeyay dabeetana inanka reerkoodu waxay u xiray hooyadii waa hooyo waxay u xiran tahay sheer garayn ummadda Soomaaliyeed halka waxaan uga sheegayaa xaggana wanu ka ciishaysanay laakiin goormaynu ciil baxaynaa waxaynu ciil baxaynaa markaynu isku duubnaano inagu yaanaynu isku qaqabsanin waxba cadawga koowaad ee inoogu daran imika qolyahan Somaliland ee Muuse Saamiri iyo waxaan idin sheegayaa tababar buu siiyaa bal idinku aad u dhageysta Soomaaliyeed sheekadan caawa tababar buu siiyaa waxa weeye wuxuu ku leeyahay dadkaydu ku kaxsan maba taqaanaanba waa la garaacaa biyaa lagu ridaa habeenkii baa la garaacaa maalintii baa la garaacaa dumarka naasaha la jiidaa rag tababaran baan idin soo diraya idinku ii soo dira rag aan idin tababaro waa dadkan jeeloogaadeen dadka ku garaaca dabeetana kuwan Somaliland ilmo Muuse Shaani ayaaba niman u dirtay nimanka maxaa la soo barayaa hadaba waxa shaqada la soo barayaa waxa weeye dumar naasaha laga jiido iyo rag xiniyaha la jiido subhanallahi wa qadir war Soomaali halkaasay hadhowbayna oran doontaa cid baad wax ka sheegtay maxaad waxan uga hadashay haddaanu ooyin oonanu qaylin hadaa ummadayda miyanu sii daynaa war waxa la marayaa inuu ninkii Muuse Shaani u dirto ciidan jigjigaa lagu soo tababarayaa qaabka loo tababarayaana waxa weeye malaa nidaam la isu garaaco oo la yiraahdo in dumarka naasaha wax laga qabtaa oo malaa way ka xanuunsadaan raggana xiniyaha la jiidaa habeenkiina biyo qabow lagu ridaa tababaradaas socda halkaasaanu kale ka ognahay waanu cambaaraynaa ilaahay baygo war ummadda Soomaaliyeed ay meel joogtaanba qayliya isaga yaa afkaaga suubso warad nagat walba oo nacasi uu soo dooranaya war ummadiisii iyo dalkiisii baa la garaacaya markaas afkaaga suubsade maxay tahay adigu kaaga suubso ummadda Soomaaliyeed walaal waxaan u sheegayaa meel walba ay joogaan horta qodobkan u sheegaya waxa weeye midnimo
qodobkan u sheegaya horta waa midnimo waa qodob ha midnimo wala lu sheegaya dabeetana qodobka labaad uu sheegaya waxa weeye yaan idinka Soomaaliyeey qabiil ahaan la isku kiindiri habeen walba waan idinku celiyaa habeen walba waxaan idinku celiyaa ilaahay baa igu ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waan jecelahay war kuwan warsangeli iyo dhulbahantee isaaq hanabcaysanina laakiin nidaamka Hargeysa ka jira naca kuwan reer Booramo nidaamka Hargeysa ka jira naca laakiin qabiil la ilaahay isaaq hanicina meel walba ay joogaan idinku walaalooba taasaan ummadda Soomaaliyeed horta ku boorinayaan waa qodobka labaad ma jiro ummad Soomaaliyeed oo isnacabay Hargeysa qofku intuu ka tago beledweyne ka soo adeeganaya meel lagu cunsuradeenayo iyo meel la isku nacaya ma jirto kuwa taga in meesha la Garowe baasbarada ka doonta guryaha Garowe hoteelada markii bixismaan bay guryaha seexdaan waa lagu soo dhaweeyaa kuwa Garowe ka yimaada Hargeysa lagu soo dhaweeyaa dhamaantiin walaalaatiin laakiin mid baa jirta cadow baa walaal isku keendiraya meel walba joogtaan fariintayda cid walba gaarsiiya cadow baa isku keendiraya noocyo badan buu leeyahay bal imika ninkii la goodan jiray Yuusuf Garaad Umar wasiirkii arrimaha dibadda inoo ahaa waa la magacaabay shaqadiisii buu gudan waayay waa laga qaaday shaqadiisii dabeetana markii laga qaaday shaqadiisii ayuu imika wuxuu soo bilaabay dad baa waa qabiilka isaaq la yiraahdo ayaa lagu xasuuqay Muqdisho oo jasiira lagu laayay oo Allahumma salli ala Muhammad waxbu ka sheekay muxuu kicinayaa okay jasiira iska dhaaf iyo 740 qof Yuusuf Garaad ummad Soomaaliyeed oo dhan baa la xasuuqay ma jeefeenkii la xasuuqay ka waran ogaadeenkii la xasuuqay ka waran xawaali la xasuuqay ka waran habar gidirtii la xasuuqay ka waran nidaam buu ahaa haddaad ka hor timaadana wuu ku dilayay dhamaatay imika Muuse Biixi baa la heshiinaysaa waxaad soo kicinaysaa muxuu yahay isaga kelmadiisa waxa dul istaagaya oo caawa in badan ka hadli doona Cabdisalaan Gentleman waxaan walaal idin sheegayaa meel kasta iyo cid kasta oo dulmida ummadda Soomaaliyeed xildhibaanadana waxaan u sheegayaa waxaan leeyahay waa nagu raagteen ummadda Soomaaliyeedna dhagahay taagaysaa anigu waan idin ogahay laakiin shacabka Soomaaliyeed idinma oga anigu waan idin ogahay oo shaqadiinii Jawaari baa imika haysta maruu erga tago iyo maruu idin soo ooyo marka idinku shaqadiina guta hadda ka qaadaysaana ka qaada hadda u deynaysaana u daaya laakiin shaqa ahaan hal la wato oo dawladdu ha shaqayso oo yaa marka halkaas iga soo caayayaan waa ilmo Muuse Shaani way gubanayaan tababarbay u direen waa imika idinku cilanayaa tababarba loo diray jijiga meesha la yiraahdo habka ragga loo dilo iyo habka maba taqaanaan buulinayli ana idin baraya waa ninkii caanka ku ahaa jeelogaadeen iyo marka chorus buu diray qolada choruska ka imanaysa ladan waan tuuraya walaal qolada choruska ka imanaysa waxay soo tababaranayaan waa dad Soomaaliyeed oo la garaacayo horta koow Soomaaliyeed maxaaba aniga qof halka iga soo caayaya maxaaba aan ku hadlayaa aynu isfahanno hadda aqli leedihiin wallahi waxaan u hadlayaa meel kasta oo Soomaaliya joogto waan ka hadlaa xadna malihi hadday gaarisa dhibaato ka dhacdo waan ka hadlayaa jigjiga waan ka hadlayaa xamar waan ka hadlayaa Hargeysana waan ka hadlayaa Boosaasna waan ka hadlayaa Boosaaso doon baa ku gubatay bali dhageysta doon baa gubatay maalintii hore waxaynu ogeyn horta ummadda reer Boosaaso halkan waan ka salaamayaa shacab xalaala walaal waan tuurayaa ay soo hormarteen shacab xalaala oo nadiif weey waati dooni ka soo caariday waa kuwii ciid iyo dhagax meel ku shubtay doontii badbaadiyay doon kala gubatay bal Cabdiwali Gaas dekedan isaga iibiyay isaga yiri horumar baa laynoo wadaa isaga yiri DB Wall iyo hay'ad iyo shirkad baa imanaysa waa loo tagay
markii doontu ay shuf beelaysay baa loo tegay umuu joojinin bal ummadda Soomaaliyeed hadhow qaar baan soo oranaya maxaad gaas ku haysatay war annaga gaas ma lacag baan ku leeyahay ma lacag biigu leeyahay ima yaqaan ma aqaan laakiin danta Soomaaliyeed doonyahan dadkan shicibkan waxaan gubanaya waa aniga wax aan leeyahay mana daynaya taa inaan ka hadlo waayo haddaan ka aamuso nusqaan bay igu tahay marka waxaan idin sheegayaa doontii gubati doontii way gubatay ninkii lagu oran jiray carabkiina wuxuu yiri shaqo kuma lihin carabkii boosaasa joogay bal kaaga si daranta carabku wuxuu inoo soo saaray wuxuu yiri cashuurtaba dekada boosaasa walal waa lagu noolaa dad masaakiina agoomo balaaya ayaa wax ka guran jirtay dad waalwaalan dadka yaqaana reer boosaasoodka ruqiyawaal baa lacag ka qaadan jirtay wallahi usbuucla ilaahay bigu waa islaam waalan oo boosaaso ku nool ruqiyawaal la yiraahdo meeshii nooca ahayd ayuu yiri nin carabi lacagta cashuurta telefoon igu soo shuba dadkan iga dambeeyay dalkii baa yaqaanay telefoon la isugu soo shubo ayuu igu soo shuba okay dekada wuu afjaray dadkii masaakiinta ahaa islaamihii waalwaala agoomihii balaayid waa laga jaray hadday waayahe dekadii dhibaata ku dhacdo soo inuu gurmado maaha soo inuu carabku dabdamisyo iyo alaabiyo maraakiibtoodii taagagoodii way taagan yihiin laakiin dan kama leh dhowr iyo 10 milyan baa doontaa ku gubtay yay ka gubteen reer boosaasay ka gubteen maya ana hadaba idin sheegaya reer shakhsiyaaba wax ku lahaa habar gidir baa wax ku lahayd oo gobolada dhaxaa reer cadaada wax ku lahaa doontaa gubatay ilaahay baan idinku dhaaray bal inaanu qabiilo xahay waa la isku soo rartay doonta marka walaal waan tuuray ladantii waan tuuray alxamdulillaah rabbil caalamiin marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anigu xad malihi cabdisalaam xad male boodharina xad male nabad iyo nolol baanay halkaas aynu ka wada shaqaynaynaa haddii ummadda Soomaaliyeed ay meel kasto joogtaanba cadawgiinu waa qabyaalad laakiin yaan qabyaalad han la isku kiindiri maanta halka waxaan ugu mahadcelinayaa xildhibaanada koonfur galbeed ee jawaari runta u sheegay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waayo inay qabsadaan ummadan reer koonfur galbeed ma inay wax walba ka aamusaan ba way kaceen marka waxba yaan lagu marmarsooni wax kale hadii mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya haduu jawaari joogo ha joogo ahlan wa sahlan laakiin hadaanu joogin oo uu tago calankii Soomaaliya buluuga ahaa ee daba surnaa muudimin idinku Soomaaliya iimaansada mid labaad ha isku mashquulinina nin la tuuro iyo nin la keena iyo ha isku mashquulina qarannimo ay noo balana wadaniyad bay noo balana intaasaan idinka codsanaya odaygani wuu soo jiray wuu daalay waanu isku dhex yaacay waa ninka aan shir jiraayid kala goyni habeen iyo maalinba mar wuxuu ku leeyahay anaa hoggaansamaya mar erguu tagayaayo madaxweynuhu erga tagayaa mar wuu ka soo noqonayaa mar hadduu toosan qabsado maxaanu nacabahay anoo ibraahina iyo cid kastoo wadaniyad ka hadasha iyo duqbilow maanta hadlay midna ma nabca qofna ma nabca ma duqbilow way siqaanaan ibraahim way siqaanaan laakiin mid baa muhiima waxa muhiima in uu wadaniyada qabsado iska daayo awood sheegashada iska daayo shaqada qaran ee miiska hoostiisa uu dhigayo shan hindisa sharciyeed buu miiska hoostiisa dhigay ma isaga iskale baarlamaanka marka intaasan walaal idin sheegaya odaygana la fahan waa la ogaaday haddii la ridana ahlan wa sahlan haddaan la ridina shaqada toos ummadda Soomaaliyeed ha ugu qabto intaasun baan idin leeyahay wixii aan ka tegey waxa dhammaystiri doona oo idin soo geli doona walaalkii Cabdisalaam Gentleman boodharina halkaas idinka salaamayo waad arkayseen insha Allah guul iyo gobonimo khayr bay noo balana jannada noo balana
wixii cid wax iga sheeganaysa waxaan idin leeyahay waraynu saamaxna Soomaaliyeed qof kasta oo wax iga sheeganaya waxaan leeyahay cafi iyo musaamax if iyo aakhiraba qof kasta oo aniga isoo caaya oo isoo maagana waxaan leeyahay waad mahadsantahay Allah ku soo hanuuniyo tubta toosan Soomaalimada qaado wax kale oo aynu isku haynaa ma jirtay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh